waxaad u sheegaysaa waxaad oranaysaa aabo waxaad tahay qabiilka waxa ka soo horjeeda qabiilka reer hebel ilaa tan iyo awoogeen qabiilka reer hebel xinbuu inuu ahaa wuxuu inoo ogolaan waayay nolosha aabe nacbow qabiilka intaad nooshay wiilashooda yaryar ama hablooda yaryar macaamada kula dhigtaan ama iskuulka ee qabiilkaas iska ilaali waa qabiil waxana tusaale waxa lagu oranayaa waa qabiil waxa ilmihi yaraa laga dhaadhicsiinaya wax aan waxba kama jiraan waxa laga dhaadhicsiinaya wax la yasayo baa laga soo qaadaya waxa lagu dhahayaa aabe ama hooyo iska ilaali qabiilka reer hebel oo ku dhaqan oo dheh waxaan ka soo jeedaa reer hebel oo meesha jagtidba ku faanxiso haddaba isiyinka iyo qabiilka la istakoorayo waa foolxumada Soomaaliyeed kaalinta koobaad ku galeen inay yihiin qabiil oo ay ku dhaqmaan qabyaalad oo ay leeyihiin waxaan ka soo jeednaa reer hebel waxaan mucaarad ku nahay reer hebel anigoo ah Soomaali oo ku hadlaya Soomaali maxaa igu kalifaya inaan qabiil ku soo tooso maskaxdaydana ku qafilo waxa Soomaali rogay ama saan u galay Soomaali oo noocan ka dhigay waa qabyaalad dadku waxay isweydiinayaan horta Soomaali noocan gabadhu ay sheegayso ay leedahay noocan laga dhigay maxay tahay haddaba Soomaali nooca laga dhigay waxa ay noqonaysaa waa kala soocida iyo kala fogeynta reer hebel iyo reer hebel waxa jira laba reerood oo ku wada nool meel oo ilmaadeer iskugu yimaado oo dhahaya anigu reer hebel baanahay oo laandheeraanahay waa ragga iyaga 100 gaara adiguna reer hebel baata oo laangaab baata raggiina 30 gaara haddaba aakhiro raggana faanisid ma jiro mid ku faala qaadayo oo dhahaya ilaahayow dambi uu galay hebel ama qofku soo dilay maalintuu adduunka joogay aniga isaar oo ana ka kafaala qaaday ma jiro haddaba ha isku halayn wiil adduunka ku nool ama gabadh adduunka ku nool qof adduunka dushiisa ku kula nool ha isku halayn noqo qofka kaliya ee ah inuu ilaahay tala saartay ee hadii maalinta uu dhintana wax khayr qaba la tagi doona ilaahay hortiisa ee aan afkiisa laga maqli doonin ama la oran doonin qabyaalad buu ku dhaqmi jiray maalintaada aakhira tagtid gacantaada ayaa waxay ku sheegaysaa ama afkaaguba uu ku sheegayaa inaad qabyaalada ku dhaqmi jirto